bal ka waran daawade haddii ay kugu dhici lahayd dhacdadani adigoo toddoba bixi guurkaaga u baxay 3 cisho kaliya taa adigoo maqnaa markii aad tiri dib ugu soo laabo qoyskaaga iyo weliba hooyada meeshii ay joogtay adoo diyaaradda saaran laakiin aan weli gaadhin gurigii ka waran haddii kuu soo dhici lahayd fariin ku saabsan amba message kuu sheegaya in hooyada geeriyootay hooyadana aad ku ogeed caafimaad welibana kula qaybsatay farxadii guurkaaga isla markaasna stresskii iyo walwalkii iyo naxdintii kugu dhacdayna murugadii badnayd aad dareentad ceshan kar weyday darteed welibana diyaaradii lagaaga dejiyay oo lagaaga soo reebay sidee dareemi lahayd waqti xaadirkaas xaaladaadu sidee ayay noqon lahayd Where you taking me? Where you taking me? Don't do that. You're lying to me. ka waran adigoo aad u faraxsan sidoo kalena ku jira waqtiyadaadii hore kaaga duwan taasoo ay sababtay farxadda guurkaaga maalinkii uu meherkaagu dhacay amba si aad guursatay kadibna aad safar u baxday soo noqoshadaadii adigoo diyaaradda saaran kuna soo socdo wadankii aad ku noolayd waqtigii guurkaaga 3 cisho oo kaliya ta markii ka soo wareegtay haddaba ka waran daawade adigoo ku jira waqtigaas farxadda badan sidoo kalena safar ah waqtigii guurkaagana kaliya ta ay ka soo wareegtay 3 cisho haddii aad maqli lahayd dhimashada amba geerida hooyada adigoo diyaaradda saaran isla markaasna aad maqashay dhimashada amba si geerida hooyada naxdintii iyo welibana murugadii iyo walwalkii haddii lagugu sii dari lahaa in diyaaradda lagaa saaro oo dib airportkii lagugu celiyo Turkiga adigoo London u socday xanuun nooceeya iyo murugo nooceeya ayaa dareemi lahayd haddaba dhacdadani waxay ku dhacday wiilkan Soomaaliga ah ee hortiina ka muuqda magaciisa waa Cadnaan Xaashi bartiisa TikTok wuxuu ku soo baahiyay Cadnaan Xaashi dhacdo xanuun badan oo isaga ku dhacday taasoo qof kastoo arkayna runtii uu la qiirooday qisadanina waxay qabsatay social media guurkiisii iyo geerida hooyadii waxa u dhaxaysay 3 cisho kaliya ta wiilkan Cadnaan Xaashi wuxuu ku nool yahay London isaga iyo qoyskiisuba Cadnaan Xaashi wuxuu guursaday taariikhdu markay ahayd 8 Oktoobar sanadkan aynu ku jirno 2022 isla maalinkaas uu meherku dhacay isaga iyo xaaskiisuba waxay toddobabax u tageen Turkiga 2 cisho kadib safar ayuu soo galay Cadnaan Xaashi si uu ugu noqdo London nasiib xumase isagoo saaran diyaaradda Turkish Airlines waxa u soo dhacay message kan hortiina ka muuqda wuxuu ogaaday in hooyadii dhimatay isla markiiba wuxuu bilaabay warwar iyo naxdin waa dareemi kartaan qof loo soo sheegay geerida hooyadii amba si ogaaday xaaladiisu siday noqon karto iyo welibana qaabku qofkaasi isku bedelayo isla markiiba waxa ku dhacay stress fara badan iyo welibana naxdin taasoo sababtay in booliskii airportka joogay ay gudaha diyaaradda u soo galaan waxay u sheegeen niyadana ugu dejinayeen inay caawin doonaan laakiinse Cadnaan Xaashi wuxuu ku dhawaaqay been hay sheegina dhammaan rakaabkii diyaaradda saarnaa waxay la murugoodeen Cadnaan Xaashi sidoo kale waxay ka soo horjeesteen ficilkan ay sameynayaan askartu boolisku wuxuu isku dayay amba si ay rabeen inay diyaaradda ka dejiyaan Cadnaan Xaashi balse waxa garab taagnaa Cadnaan rakaabkii saarnaa diyaaradda kuwaasoo xitaa u sheegay haddii laga dejiyo isaga inay dhammaantoodna wada degi doonaan rakaabkii saarnaa diyaaraddaasi intii karaankooda ahayd waxay isku dayayeen inay difaacaan laakiin nasiib xumo kumay guuleysan ugu dambayna diyaaraddii waa laga dejiyay Cadnaan boolisku waxay ku andacoonayeen sababta ay diyaaradda uga dejiyeen inay ahayd wiilkani inuu been sheegayo sidoo kalena uu sirqaansan yahay khamrina uu soo cabay sababta ay diyaaradda uga inay taa ahayd inuu been sheegayo hooyadiina ayna dhiman laakiinse uu ahaa qof sirqaansan runtii tanina waxay ku noqotay murugo labaad oo qabsatay Cadnaan Xaashi halkuu ka sugayay ambase uu iska lahaa diyaaraddu goormi dhaqaaqaysa Londonna ku geyn doonta si aad u soo hubisid warkan naxdinta badan laad maqashay ee ku saabsan geerida hooyada xanuunkii iyo nabarkii ku taagnaa iyo welibana walwalkii waxa ugu darsamay in diyaaradda laga reebo waxay ku qaadatay inuu diyaarad kala soo raaco 24 saacadood kadib ayuu tagay London runtii dhammaantiinba Cadnaan Xaashi waynu la murugoonay dhibaatada ku dhacday iyo geerida ku timi hooyadii ilaahay ha u naxariisto sidoo kalena samir iyo iimaan saadaqa Alle ha ka siiyo waxaa la sheegay Cadnaan hooyadii inay u dhimatay xanuunka depressionka sidoo kale Cadnaan Xaashi bartiisa TikTok wuxuu ku soo shaaciyay inuu lacag ururinayo uu rabo inuu hooyadii masaajid ugu dhiso iyo ceel biyo ah haddaba daawade wiilka Soomaaliyeed aynu kala qayb qaadano dhisitaanka masjidkaas uu u dhisayo hooyadii linkigana waxaan soo dhigi doonaa commentiga amba description-ka waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan fadlan share garee si uu dad badan u gaadho waa anigoo ah Nadari Saciid
People in Bristol who have faced challenges with mental health issues or cancer have started a charity to try to help others. They're all members of the city's Muslim and Somali communities, and they say it isn't always easy to talk openly about such issues. Osob Elmi reports. Among those supporting the charity event was Adnan Hashim. This is the moment he had to be removed from a flight he'd boarded in Turkey recently. He was in a state of extreme distress, having just learned that his mother had died after battling a mental health illness. He wants her death to act as a warning. So my mother literally suffered in silence. Everyone takes depression as something not really talked about. No one oversees it between people. People tend to ignore it, think people are lying between each other. But really it's something serious, and we should all be there for each other and speak to each other and check on each other. You never know what someone's going through in life, and that's what I'm here for today. Where are you taking me? Where are you taking me? Don't do that, you're lying to me. I have to. Open me. I'm taking you off the flight. Where are you taking me? Where are you taking me? Don't do that, you're lying to me. Please wait 1 second. You don't want this to be in all the social media, right? Stand up, please. Everybody stand up. Stand up! Up! If you get out of discipline, I get out with you. I stay with you. Your wife can fly back. I stay with you here. I come with you to England. Don't leave the plane. You're staying seated. I'm gonna leave you. No. I don't care. Everyone, let's go off the plane. Everyone get up and let's go off the plane. I'm not giving you a passport. You sit down. You sit down. I'm not giving you a passport. You don't stand up. You sit down. I'm giving you a passport. Give my passport. Yes, passport. Everybody stand up! Up! That's them, isn't it? Yeah, this one. Yeah, there's no question about it. Just don't get up. Just don't get up. No, just okay. Just take a seat. I'll just. Close.